فصل هذا كان فاصل من وحكى سارو في واجبات القرآن وحو فصل يا هاي قرآن كأصل كيسي هو يديسي واجبات كيدي وفاتحة الولجة فاتحة وحنكسر بحني الله أكبر شروطها لقى مرمان كأقف إنه لي ماذا هذا الشيخ وهلكم وحكي قولي شروط فاتحة قفك مركو فاتحة آخر السنة أيوه فاتحة شروط اللي قبلها هي فاتحة وأركانته وحكم هيد صلاة هو أمهم سن أي كجرتها ولذلك فاتحة مركو هربا إلا إسكا صحو ولا مرمان dad badan waxa jira iska waaweyn ama waayeel iska ah oo iyagoo carabkoodu weynaaday faatixadii bartay oo waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin waxa wanaagsan dadkaas oo kale in aysan ka xishoonin inay cibaadadooda ay saxdaan oo dugsida quraanka ugu dhow ama qofka maaragtay caruurkooda ah ama qaraabadooda ah inay maaragtay yiraahdaan faatixada naga sax maxay la faatixada la'aanteedii waxaan saxayaa ma jiraan faatixada la'aanteedii waxaan saxayaa ma jiraan marka walidaalika waxa laga yaabaa wax badan intaas oo sano qofku inuu iska tukanayo waayeel iska yahay haddana faatixada aysan u saxnayno salaadii hadduu dhinto maanta la leeyahay markii qabriga uu galo uu ugu tago magac taariikhu salaad isagoo looga yaqaano qabriga gudihiisii wal ciyaad billah wa halis laana waxa tusinaya xadiiskii Xudayfa ibn al-Yaman saaxibu sirri rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam oo imaam Ahmed iyo qeyrkiisa xadiiskuba way wariyeen nina agtiisa ku tukanaya Xudayfa ibn al-Yaman markaas uu yeeray salaada markuu dhameystay wuxuu yiri imisa sana tukanaysa salaada markaas uu yiri 40 sana salaada tukanay 40 ka sano masjidana salaada u tukanaysa yiri haa law mutta ala ghayri لو مت على ملة غير محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri hadaad saan ku dhimato waxaad ku dhimanay diintii nabi maxamed diin khilaafsan diin kale aad ku dhimato saan hadaad ku dhimato marka rugniya marka ninka ka jabnaayo saxaabigu u sheegay Xudayfa ibn al-Yaman faatixadan haday ka jaban tahay marka halis weey wax marka aad marmarsimo ah oo ku andacootana maanta ma haysatid maxay furaskii iyo fursooyinkii wax lagu baran lahaa kulli waa mutawafir oo ay dhameystiran yihiin oo qofkii maaragtay maanta waqti uu dhihi karo meelan wax ka bartaan waayay ama qof wax imeeriyaan waayay ama qof wax iga saxan waayay qof maanta ku andacoon kara amaam Allah markuu tago ilaahay hortiis ma jiro meel walba maaragtay waxa mutawafir oo dhameystiran dad yaani kugu sadaqaysanayo qarash aan ka qaadanaynin oo farxad ba ay u tahay inay wax ku baraan وفرحة يتاهي marka lidalika waxaan dardaarminaa mar walba faatixada in la iska saxo oo dadka waaweyn khusuusan ay yiraahaan naga dhageysta bal inay wax naga saxan yihiin inay wax naga khaldan yihiin bal naga dhageysta yiraahaan oo qof caarif uu u tago shuruud al-faatihati faatixada shuruudeedii 10 toban sheekhu wuxuu yiri shuruud faatixadu waa toban shardiga ugu horeeya tartiibin sida faatixada hadda loo nidaamiyay oo ilaahayba uu u soo dejiyay subhanahu wa ta'ala oo erayadeedu ay u kala nidaamsan yihiin waa inuu sidaa isugu xijiyo hadduu wala daalin uu ka bilaabo bismillaahir rahmaanir rahiimna uu ku khatimo eber way salaadiis ma ansaxayso wal muwalaatu xirxiriirin maxaa loola jeedaa baan la yaatiya bifaasil waa inuusan erayada faatixada wax u dhaxaysin hadal waa inuusan soo kala dhexgelin فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة ولو قليلا هذه ذكر أجنبي أو صلاة أن وحرير الله لهين هذو سوك لا دحقلو هبا يراده كحمد عادس قف أكتاد كوهن دسي وكله قف أكتاد كوهن دسي مركز قف كوهن دسي أياد الدعيس وإن سنة خارجها صلاة يعني بنان كذا هبا لو سنة يقف هندسي إن لو دعي لكن قف صلاة الحديث يقف هندسي ما بلو دعي هذا صلاة كجرة قفها هندسي مركز وحاتري يرحمك الله داتري صلاة وكابربة فتحة انقضاء عيد وحكدرا صلاة كابربة لأن وحوي الخطاب لغير الله وغير رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة تبطل الصلاة هذه وحن إلهي رسول كيسا أهين صلاة الدحلي دي أدخل خطابته صلاة وكابربة إلهي اللي أقولها إن يعني اللي أقولها إن صلاة الدحلي اللي أقولها هذلو أو اللي أقولها خطابه أما النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الدحلي اللي أقولها خطابه
لكن وحن إلهي رسولك سائل صلاة الدحدة هداد كل خدامته يرحمك الله تراه ابرو صلاة هذه ما أنصحيس وكإجابة المؤذن مؤذن كي يدو جوابته هذا صلاة دي كل حجرة فاتحة آخر سنة آذان كي يدعي آذان كي وحو آخرين إن قفك مؤذن كي يتكدبتر الله أكبر يتكدبتر قطع الموالاة حرير كي يجري فيعيد القراءة قراءة فاتحة الدب سعلي ولا تبدل صلاته لكن صلاة دي سي مبريس ومثل ذلك سبحان الله مدى الصلاة على النبي قال له صلى الله عليه وسلم هدو سوك لدح قليو فاتحة دي ساقو آخرين يصلي سوك لدح قليو نبي كسل صلى الله عليه وسلم صلاة مبريس ولكن وكسر علينا فاتحة دي وقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واللمد وحاصل وحي كلا جرايان فاتحة دي فيعيد القراءة لقطع الموالاة بذلك قراءة فاتحة وإنه كسر عليه نعم إن وقع ما وقع نسيانا لم يقطعها هذو لكن انتو اسهل ما ذكر سوك لدح قليو هلمان مكلا قوينا قراءة فاتحة بل يبني على ما قرأ ماشو أخريو كسي وضنا مركز انتو ماشو جوكتي أيو كسي وضن ومما يقضع الموالاة حاكمة تصبيحه لمستأذن عليه قف قرية سوى قرية كل حد كناي قرية مسوق قلالي سبحان الله فاتحة دحدو سبحان الله كل حير سبحان الله يسوي كلا جري قراءة فاتحة هذا وين تصوب بالله وذا فاتحة هذا فاتحة هذا وين تصوب بالله مركز حريرين توالا مارمان وذكر أجنبية وإن لك لدح قلين ومراعاة حروفها حروف الفاتحة ومراعاة حروفها حروف الفاتحة فاتحة حروف تيدي حروفتها إلالين تيديو حروف فاتحة وإن لا إلاليو هل حرف أو كمذا أن لقتقن حروف فاتحة إلى وحي قارب بقول كنتن إلي حرف بقول كنتن إلي حرف يكوبان تاي فاتحة بقول كنتن إلي حرف ومركي الآخريو مالك يوم الدين بإثبات الألف ملكي هدي الآخريو بقول كنتن شن حرف ينغن لكن مالك ألفته هذا آخرسه مالك وميمك ألفته كتاكتد مالك يوم الدين هذا آخرسه بقول كنتن اللي حرفه بقول كنتن اللي حرف كم إذا هدي أتكتكتد فاتحة دي صلاة دي ما أنصحي سوي برتي ومراعاة تشديداتها تشديدات الفاتحة فاتحة الشداديال كدي الشداديال إلى لنتيدو فاتحة وحيلادها الشداديال فربضان وفصل كالصوص عدا أيان نوغا شاكين دونا تشديدات الفاتحة هل شد أو كم إذا هدي أتكتكتد فاتحة دي ما أنصحيس دادad waxaad moodaa on salaadii markay tukanayaan in waxa ay aqrinayaan bal yiriba hal shid ka ilaali faatixadii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu erayo waxa jira hadii shadkii laga dhaafo macnahoodu xataa isbedelayo oo haddaan la shadino shadkii laga dhaafo macno kale oo yaani laga yaabo qaarkood inuu gaalnimo noqdo keenaya jira hadii shadkii laga tago marka waa laga maarmaan shidka in la ilaaliyo in la iska yiraahdo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim daal waxa soo kale faatixana ku noqon maayaan salaadna ku noqon maayaan laazim laakiin shidka naftiisa markaad shidayso shid dabiici iyo si dabiici isaga shid dadka qaar waxay sameeyaan markay wax shidayaan madaxii la ruuxaya bismillaahir rahmaanir rahiim hadii xarakaad mutawaaliya saddex goor xarakaad aad sameeyso salaadii waa ka buri بسم الله الرحمن مدحي جق كسين مانتو لما أقول أيضا حاس كل به شد طبيعة مخرج كا وحلاقة شدا لكن ماشى المدح وحلاقة مشي ظاهر كيس وحلاقة شدا يو ومخارجته يا عرب كاسي اسكت عيا وحلاقة شدا لكن مدحان إيه قربهان إيه قربهم وحلاقة شدا إيه مدح شقكم لها وحشقاه كل يهين ملهن مركب وحبها يسرحن وحنا مدحا يا قربها روح مركه وحشديس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طبيعي اساس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما اقول تاسف قربه يا مدحي اديق دنا اد نوح حسنيس سيدي غوري دميه او كله تاس بادر صلاه يا كجبس ومراعاة تشديداتها تشديدات الفاتحة فاتحة دي شداديالك إلى لنتيديو وأن لا يسكت وإنه صن آمسين سكتة آمس كاسو طويلة دير آمس دير هدو آمسو وفاتحة دي مثلا الحمد لله رب العالمين مركوير
muddo iska aamusnaa markaa kabacdi arraxmaan الraxiim yidhi ebro waa inuu soo bilaabo qiradiyaa ka go'aysa salaaddii ma burayso lakin waa inuu faatixadii ku soo celiyo waa laga maarmaan qiradaa dheer ama ha u qasdo inuu qiradii ku kala jaro aamuska dheer ama ha ula jeedo ama yuusan ula jeedin yacni lamaba ogolaba aamus dheer biduuni faslin wa biduuni tafsiil iyadoon waxba la kala saaraynin aamus dheeraanba la ogolaynba walaa qasiiratan mid gaabanna waa inuusan aamusin qasiiradaasoo yaqsidu bihaa aamuska gaaban uu ula jeedo qadca alqiraa'ati qirada goynteedii uu ula jeedo aamus gaaban markuu dhibaato keenayo waa goorma markuu ula jeedo qiradii faatixada inuu kala jaro aamus gaaban uu aamusay wuxuuna ula jeedaa faatixadii inuu kala jaro qiradeedii taasina haddee waxay kala goynaya faatixada akhrinteedii waa in dib loo soo bilaabo dib in loo soo bilaabo waa laga maarmaan wa qiraa'atu kulli aayaatiha aayaati alfaatixa faatixada aayadaheeda aayadaha dhammaantood aqrintooda toddobada aayadood oo ay ka kooban tahay suurati alfaatixa dhammaan waa in la wada akhriyo oo hal aayad aan laga teginin wa minhaa waxaa ka mid a aayadaha in la akhriyo ay waajib tahay albasmalatu bisinkiyaa ka mid a bisinkaas waa aayad ka mid a aayadaha faatixada in la akhriyo waa waajib haddii bisinkii laga tago oo qofku uu ka bilaabo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salaaddiisii ma ansaxayso salaaddiisii ma ansaxayso laakiin madaahibta waxay isku khilaafaan bisinka waa la akhrin oo waa muhim waa laga maarmaan mar walbaba ma hoosaa loo dhiganaa mise koraa loo akhrin imaamu shaafici wuxuu leeyahay basmaladu iyo faatixadu maadaama bisinku uu yahay aayad faatixada ka mid a qaybna faatixadii kor loo qaadi maayo qaybna hoos loo dhigi maayo kulli waa lala jahri dhammaan salaaduhu hadday salaad jahriya salaaduhu hadday tahay salaad jahriya faatixadii in la kala qaybiyo ayaa imanaysa haddii la yidhaha bisinkii hoos ha loo akhriyo alxamdu lilaahina kor ha loo qaado waxay noqonaya yacni qiradii faatixadii oo qaybna hoos loo dhigay qaybna kor loo qaaday saas awgeed qaybo badanoo asxaabta nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ka mida waxay qabaan iyo madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala in faatixada yacni bisinka lala jahro inay sunno tahay mabaaxista mas'aladanna waxaa aad u faahfaahiya imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca ah ayuu ku faahfaahiyey adiladeeda waxaana tusinaya xadiiskii bukhaari oo min xadiidi anas ibni malik anas riwaayaad fara badan ayaa laga wariyey oo ku saabsan basmalada kor u qaadkeeda iyo hoos u dhigiddeedaba bukhaari riwaayo uu anas ka wariyey ayaa waxay ahayd anas wuxuu tilmaamayey qiradii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi kaanat qiraa'atuhu maddan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qiradiisu muduudda waa ilaalin jiray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yamuddu bismi اllaah bismi اllaah allahdaa madka ku jira madkaas nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuu sugi jiray waana xaqiijin jiray wayamuddu arraxmaan arraxmaan madka ku jirana madkaasna nabigu calayhi الsalaatu wasalaam kama tegi jirin wayamuddu arraxiim arraxiimka madka ku jirana madkaasna nabigu waa xaqiijin jiray oo kama tegi jirin salى اllahu عalayhi wasalam marka riwaayatu anas fii saxiixi الbukhaari waxay tilmaamay inuu maqli jiray nabiga muduuddiisa bismi اllahi الraxmaan raxiim oo waxaa tees ay tusinaya nabigu inuu la jahri jiray calayhi الsalaatu wasalaam bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waxaaba kaloo jirta riwaayo ka sii caddaan badan middaas oo riwaayat اlbazaar fii musnadihi oo bazaar musnadkiisa wuxuu ku wariyey nuuruddiin اlhaythami xaafid nuuruddiin اlhaythami kitaabkiisa la yidhaha majmacu الzawaa'id wa manbacu اlfawaa'idna uu ku yidhi xadiiska rijaaluhu muwahaquun waa xadiiska dadka wariyey waa dad lagu kalsoon yahay oo isnaadkiisa uu saxiix yahay ayaa waxayba ahaydba أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهي رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم نبي كرو قادي جري بسم الله الرحمن الرحيم صلاة جهرية ولا جهري جري مقر سنجرين بسم خواص مدق جرين رواية ابن عباس وحنا رواية وري بزار في مسنده حافظ نور الدين الهيثمي كتاب في مجمع الزوائد وحكوير رجاله موثقون رجع حديث كوريي ورجل لو كلسون yahay oo isnaadku waa isnaad saxiix ah sidaas oo kale bayhaqi waxa isaguna uu sunankiisa ku wariyay biisnaadin saxiix nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yiri idaa qara'tum alxamdu lilah faqra'uu
بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها النبي عليه الصلاة والسلام يري هذا سورة الحمد لله آخرين إنسان فاتحة بسنك آخريها كتجننا محايلة بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها ورواية البيهقي في سننه وأنا إسناد كن هو الصحيح حديث إسناد كيس الصحيح يهيو وحكى له سلاس وكلا أبو داود يا حاكم يا بيهقي يا دارقطني كل جود أي وريان من حديث أم سلمة أم سلمة وكمد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الشيختي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية رسولك صلى الله عليه وسلم أصدق صلاة كجرة أيو أقريه بسم الله الرحمن الرحيم ووليبا وكتري آيات أن لقتك كرين marka akhrinta nabiga kaleey salaatu salaam waxay sheegi ummu salama inay maqli jirtay nabiga bisinka la jahray bisinka la jahray hadii nabiga hoos u akhrin lahaa ummu salama ma maqasheen basmalada ma maqasheen marka riwaayad waxa jira ilaa 6 saxaabi oo asaaniid saxiixa looga wariyo Abu Hurayra uu kamid yahay ummu salama ay kamid tahay oo kulligood yira ibn Abbas uu kamid yahay oo kulligood sheegaan inay maqli jireen nabiga kor u qaadaya bismillaahir rahmaanir rahiim lidalika marka adiladaas faraha badan ay asxaabta qaybo badan oo kamidana ay cuskadeen imaam shaafiicina ay cuskadeen oo yiraahdeen basmalada in la jahro ayaa sunna ah salaadaha jahriga in la jahro wa qiraa'atu kulli aayatiha walidalika marka riwaaya sida xaafid ibn al-mulaqin ba uu leeyahay xaafid ibn al-mulaqin waa xaafid ibn hajar al-asqalani sheekhiisi ibn al-mulaqin wuxuu yiri riwaayo ku soo aroortay nabiga siraysan jiray bisinka oo hoos u dhigi jiray lama hayo waa riwaayo ku cad waxyaalo muhtamil oo xadiis Anas ibn Malik oo la isku khilaafsan yahay xadiis Anas ibn Malik baad riwaayadna ildirab ku soo arooray oo nabiga gadaashiisan ku tukaday Abu Bakar gadaashiisan ku tukaday Umar gadaashiisan ku tukaday ma maqli jirin bismillaahir rahmaanir rahiim asagoo nabigu aqrinaayo riwaayaadka noocaas oo aan cadayn asagoo haduusan maqli jirin Anas dadkan ummu salama iyo Abu Hurayra cadaynaya inay maqli jireen bisinka nabiga kaleey salaatu salaam riwaayaadkaas ihtimaala galay laakiin ibn al-mulaqin wuxuu leeyahay riwaayo ku cadaynaysa nabigu bisinka hoos u akhrin jiray ma jirto riwaayo saxiix oo isnaadkeedu saxiix yahay kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yusirru bi bismillah nabigu bisinka waa siraysan jiray hal qof oo saxaabi oo laga hayo ma jirto leeyahay xaafid ibn al-mulaqin riwaayaadka qaar la sheegayo waa riwaayaad ihtimaal uu galay oo dhinac kale u fasirbi kara wa kullu sahihin laysa bisariih wa kullu sariihin laysa bisahih riwaayaadka haday saxiix yihiin qaar kood isnaadkoodu saxiix yihiin kuma cadda lafdul israr inuu siraysan jiray kuma cadda nabiga kaleey salaatu salaam bisinka oo hoos u dhigi jiray wa kullu sariihin laysa bisahih kuwa ku cado yusiru dhahayo nabigu waa siraysan jirana isnaadkooda la duray oo saxiix aysan ahayn marka waxa weeye sidaas mas'aladu sawaab u tahayo kullu sahihin laysa bisariih wa kullu sariihin laysa bisahih riwaayaadka ku cad qaar kood nabigu waa siraysan jiray saxiixan ahayn isnaadkooda kuwa isnaadkoodu saxiix ayahana mas'aladaysan ku cadayn oo mas'alatu sir kuma cadda ومنها البسملة ومنها waxa kamida aayaadka faatixada albasmalatu bisinkiya kamida wa adamu lahni weyntiisiya kamida waa in lahniga la iska ilaaliyo lahnigaas oo al-mukhil nusqaaminaya bil macna lahniga macnaha nusqaaminaya waa in la iska ilaaliyo oo lahnigu hadduu hadde macnihiiba uu dhibaato gaarsiinayo hadde salaadii oo dhan aan ba ansaxaynba salaadii oo dhan qaarkoodna waxayba gaarsiinayaan kufri iyo gaalnimo ay gaarsiinayaan hadduu qofku caqiideeyo oo tusaale ahaan lahniga ancamta calayhim meeshii laga rabay taada inuu kor dhigo ayuu wuxuu yidhi ancamtu calayhim maxay noqonaya dadka anaa u nicmeeya bini aadamka waxay nicam haystaan anaa bixiyey noqon waana gaalnimo hadduu caqiideeyo walciyaadu billah haddii taada uu hoos dhigo ancamti uu yidhaahno waxay noqonaya gabar yahay adigaa u nicmeeya dadka makhluuqaadka adigaa u nicmeeya noqon taasina hadduu caqiideeyo gaalnimay keeni marka lahniga wuxuu u qaybsamaa lahni mukhilli bilmacnaa wa lahni gayri lmukhilli bilmacnaa lahniga macnaha dhibaateynaya waa midka salaaduba ay ku burayso salaadu aysan ansixayn laakiin hadduu lahni sidiisa iska yahay macnihii uusan dhaawacayn sida alxamdu lilaahi daalkii godnaa uu hoos dhigay alxamdi lilaahi uu yidhi alxamdi lilaahi saasoo kale hadduu yidhaaho salaaddii ka buri mayso leanna maxaa yeele lahnigaasi lahni dhaawacaya ma ah
لعني داوعيا معها أما لله وحسمي الحمد لله وير معنيه ما داوعيا الله ده هدو هذا يدقده لحن الدبات وكينا معنيه معها لكن سيدي ساد الله أقولين با إلا لحنيه سيدي سام الشرع الله أقولين لكن معنيه الدباتين مايو صلاة دينا مكبريس وأن تكون وإن يهاتو فاتحة حالة القيام استاق حالة ديسة في الفرد واجب كله استاق وحاك لو شرط إن استاق لغو آخريه فاتحة هديب استاق قفكو أودي كرو إنو استاق آخريه والله مارمان هدي أديو ركوع أسي سعوده فورر سنة أتفاتحة قيمة كميدة سي آخرسو سي ذلك قارئ سميان ما أنسحيس ذلك قارئ وحلقو ابتليي استعجال يدقدق مركز وحي سمينايان أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مركي مريان ولا الضالين الركوع يكسي آخرنا هو بالشديد أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فورسي يكو آخرين ما أنسحيس فتحاس صلاة داسنا ما أنسحيس ولا الضالين وإن تكوب ستو استاق قماتي أدو تاقن وأن يسمع نفسه نفتي سوائن مغشيه القراءة إن هذا اسم غشيدنا ولا مرمان أي إسماعه نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع ولا لغت هذا قف دغوله سنهين وشنقر يبوق بدن يسنجرين وإنه اسم غشيه حروف تضمان قراءة فاتحة حروف تدودن إنه اسم غشيه إسقوا ولا مرمان أديك اسم غشي لكن ذاتك كلا إن مغشي سمعها هذا الإمام هين إمامك إسقى لقى ربا إنه فاتحة ذاتك مغشيه هذه صلاة أيتهاي صلاة جهرية سيد المغرب كي عشيه صلاة الصبح وكله لكن هذه هداد مأمون تهاي كلها اسم غشي ذاتك قارو حي سمينايان صلاته أكتود القومة تكنكر وسواسي قلينا يقفك أكتود كتو كذا أصوى مأمون معلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو تكبير الله أكبر قفك وحسليه واحد تكبير صدي وهذا إمام كيبا مركز حوارك أسوي سيدك دقا يصير ركوعي إلا إمام كيما أهل إنك أنا خلداي وضدك خلداي مأمومك مركز سيدة السنة وحلوب هي نفت هذا باسم غشي qofka dhinacan jooga kan dhinacan ka jooga yuusan maqlin qiraadaada sida sunnada ah qiraadaada yuusan maqlin waa yusbi'a nafsuhu naftiisa waa inuu maqashiyo alqiraa wa an la yatakhallalaha qiraada faatixada waa inuusan kala dhexgelin dhikrun dhikrigaasoo ajnabiyun ajnabika ah haddii markii faatixadii adigoo dhex marsiinayo aad dhikri ajnabi iska qaado subxaanallah walxamdulillah laa ilaaha illa allah allahu akbar aad tiraahid faatixada qiradeedii way kaa kala gooday waa inaad mar labaad ku soo celiso mar labaad waa inaad ku soo celiso wixii laakiin maslaxa u ah salaada maslaxa salaada wixii u ah waa la kala dhex gelin karaa sida aamintii oo kale imaamkii ayaa yiri wala dallin adigoo faatixadii dhex marsiinay aamin haddaad tiraahid meeshaadii waad ka sii wadan kartaa maxay aaminta waxay ka mid tahay masaalixda salaada ama imaamkii ayaa wuxuu khalday quraankii aad rabtaa inaad u furto imaamkii inaad u furtaa rabtaa furidii way soo kala dhex gashay faatixadii akhrinteedii haddaad u furto hadhow meeshii waad ka sii wadan kartaa wixii maslaxa salaada dhib ma laha wallahu subhanahu wa ta'ala